الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين مرت شرفتا قيمها بدن هواين كوجه الريان دلني يردا وعيلك اللي بعنا مدح دقماتك دمانتين waxaynu halkan iskugu nimi walaalayaal caawa madashan quruxda badan ee qiimaha badan ee aynu kaga hadlayno xoojinta nabadgelyada iyo magaranaysaa ammaanka dalkeena gaar ahaan caasimadeena Jamhuuriyadda Soomaaliland madashan waxaa fadhiya degmooyinka ama koonfurta iyo bariga Hargeysa ayaa iskugu yimi si ay u xoojiyaan nabadgelyada iyo in lagu taageero wanaaga iyo horumarka iyo ka shaqaynta ammaanka xukuumadeena uu garwadeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi arrimahaas aynu isugu nimi waxa weeyaan odayaal fara badan iyo dumar iyo haween fara badan baa jooga waynu soo urursan doonaa xafladeena iyo shirkeena arrimahaas ay daaran tahay waxa weeyaan nabadgelyadaynu xoojinaynaa wixii fidmo iyo fawdo ahna dhinac baynu uga soo wada jeedinaa gacan bir aynu iskaga qabanaynaa waxaynu walaalayaal la soconaa marka mudaharaad la yiraahdo waa fawdo iyo fidmo fawdada iyo fidmadu waad ogtihiin Liibiya inay 20 u qaybiyeen waa ogtihiin Tunis inay taayirka mariyeen waa ogtihiin Ciraaq in cirka loo diray waa ogtihiin wadamo fara badan oo qaxootigooda imika halkan inala joogo Suuriya joogo waxa weeyaan 24 saacadood dumar qurqurux badan oo halkan joogo dawirsanaya arkaysaa caruur yar yar oo sisiita arkaysaa dhibaatada ay fidmadu leedahay halkaas aad ka garanaysaa waxaad kala ogtihiin dhibaatadii inaga 20 sano ka hor ama dhowr iyo 20 sano ka hor aynu soo marnay ayaynu ognahay ay balanbalkiyo bayhoofka lahayd arrimaha noocaas marka la wada eego oo loo dhugu yeesho waxa weeyaan waxaynu ka digtoonaanaynaa wax wal oo waxaasi ay ka dhalan karaan oo sabab u noqon kara inaynu dib ugu noqono inaynu dhibaatada dib ugu noqono inaynu horumar la'aan noqono inaynu fawdo iyo fidmo dib u gallo waxa weeyaan arrimahaas oo dhan inagoo eegayna inaynu dalkeena iyo nabadgelyadeena ka shaqeyno inaynu xukuumadda ku taageerno ka shaqeynta nabadgelyada in aynu dadkeena iyo dhalinyaradeena iyo wax magaratadeena la marin habaabiyay aynu jidka ku soo leexino inuu sheegno intayna halkan fadhida maanta waxa laga yaabaa imaka inaa fikir aaminsantihiin ah in mudaharaadku wanaagsan yahay laakiin waxaanu rajaynaynaa madashan loo qabtay in aynu dadka formaadka ka saarno oo waxa weeyaan jib qaldan baa la geliyay aynu ka saarno aynu niraahno iska daayay mudaharaadka dhibaato leeyahay xumaan buu soo wataa waxa weeyaan haddii aan badankeeda leeyahay idinkoo maanta nabadgelyada taageerayeen halka ka wada baxno dhalinyaro fara badan baa joogta dhalinyaradaynu wuxuu sheegaynaa si weyn baa dhalinyarada wax loogu sheegayaa idinkaana wax sheegaya dhalinyaro hadda tiin oo qof waliba adaayir diir ma shakli baa la yiri dhalinyarada wuxuu sheegay insha Allah taala aad iyo aad baa mahadsantihiin